laba xidig oo muhiim ah oo ka dhaawacmay Arsenal. Gabriel ayaa garoonka laga saaray isagoo dhaawacan intii lagu jiray ciyaartii saaxiibtinimo ee Brazil iyo Senegal. Waxaana tababaraha Brazil Carlo Ancelotti uu bixiyay warbixin kadib ciyaarta. Tababaraha xulka Brazil Carlo Ancelotti ayaa sheegay in ay sugi doonaan baaritaanka si loo ogaado heerka dhaawaca uu qabo Gabriel. Daafaca Arsenal ayaa laga saaray ciyaartii saaxiibtinimo ee Senegal oo la ciyaartay Senegal. iyadoo Arsenal ay hadda ka walaacsan tahay taamaanshaha daafacooda ka hor kulanka North London Derby. Arsenal horey waxay uga walwalsaneen dhaawaca ciyaaryahan kale oo daafac ah ka hor kulanka ay la ciyaari doonto Tottenham usbuuca dambe. Ricardo Calafiori ayaa si degdeg ah uga soo laabtay xerada xulka Italy, waxaana uu wajahayaa tartan adag si uu u soo kabto ka hor kulanka Tottenham. Markii la weydiiyay xaaladda Gabriel, Ancelotti wuxuu u sheegay warbaahinta sida tan: "Ma dhaawac xunba, ma garanayo. Wuxuu ka dareemay dhibaato muruqa. Shaqaalaha caafimaadka ayaa berito hubin doona," ayuu yiri Ancelotti. Runtii waan ka walwalaa waana ka xumaadaa marka ay ciyaartooydu dhaawacmaan. Waxaan rajaynayaa inay si fiican oo degdeg ah u soo kabtaan. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan caawa ka soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. Mahadsanid.